بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة إني طبنات ومن سلسلة صحيح قصص النبوي كسب سنيد هنهران سوق هذا النسقال حلقة نسوق هذا الني حلقة واتي طبنات وي حلقة إن طبنات السلسلة دي كمدة waxay ku saabsan tahay ciwaankeedu uu yahay almutahaabuna fillah, ilaahay dartii kuwa isu jeclaaday iyo qiimaha ay leedahay darajada dadkaas ilaahay dartii isu jeclaaday iyo wixii ku saabsan iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis ka soo aroortay qayb kamid ah qaadanayna. nabiga kaleey salaatu wasalaam sida muslim iyo إمام أحمد بمسند كيسه وكسو صار إمام مسلم كتاب كيسه صحيحة وكسو صار من حديث أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام وحوق قصة ذي مال مالها كمذا صحابة ديس أيا وحوشة وحويري إنن أمضيه ورا كمذها أيا وحوصة كعي إني صاحبها هاين أيو قرية كلا يتولى كلا دجن أيو أصة كعي إنه صاب بغض درته قريدي مركو سو aaday wax kale oo ninka rabayna ma jirin walaalkiisa xagga diiniga ay walaalo ku noqdeen islaamnimadka booqasho uu booqanahay darteed buu soo aaday dhaxda markuu marahayo magaaladiisina ka soo tagay qariyadii kalena uu sagaarin ba Allah subhanahu wa ta'ala amalka ninka uu qabanayay ilaahay baraadi ka noqday amal aad u qiimo badanna waa ilaahay dartii buu u xidhiidinahay qofka u booqanahay ziyaara maartay u qawiya ayahay marka wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala u diray malag oo min malaa'ikatihi kamida dabcan malaga suura bin aadam ayuu ku yimid marka nabiga maartay malagii baa wuxuu u fadhiistay wadadu ninkii marahayay buu u fadhiistay kadibna ninkii oo socdaa malagii ka dul yimid malagii baa la hadlay war xageed u socotaa buu yiri waa waraystay magaaladu ka yimid buu sheegay meeshuu u socdayna wuu sheegay wuxuu ku yiri qariyo fulaan baan ku socdaa qaryada maxaa ka galay oo dan ah oo loogu socotaa buu ku yiri markaas wuxuu ku yiri walaal ayaa maartay ayaa iigu sugan qaryadaas oo saaxiib aan nahay sidaas aan ugu socdaa asaga malagii wuxuu weydiiyay su'aal buu weydiiyay wax abaala allaka calayhi min nicmatin tarubbuha buu ku yiri war wax nicmo ah oo kugu sugnaaday ma jirtaa بمعنى لبا معنى way ku fasiraan culimadu wax abaal oo hadda ka hor uu ku galay oo u abaal gudaysa aad u abaal gudi aad leedahay miyaa jirta waa may waxa kale oo culimadu dhahan wax masaalix iyo wax hawlo ah oo aad leedahay asaga kaaga xidhan oo u socoti miyaa jirta labada macnaba waa lagu fasiraa may marka waa labada tafsiirba way leedahay maya wax dan ah iyo wax aan xaggayga igaga xidhan oo hawlo ii hayo oon u socdo ku leeyahay ama deynha aad ama wax kala haada ama amal ii hayo aad oon u socdo male abaalu hadda ka hor ii galay oon ugu abaal gudahayana ma jirto u abaal gudahaya ma jirto ee ilaahay dartii iyo walaaltinimada iyo wanaaga naga wada dhaxeeya ilaahay dartii isku jeclaanay ayaan u aadahayaa غير أني أحببته في الله عز وجل إلهي درتي أيانك أجعلها ملقي مركز هذي طبعا هذا إلهي سبحانه وتعالى واؤغا أنك إخلاص كيسا ملقنا وظيفة الله صدر واؤغا ملقي بانك الله هذا وحول أنه رسولك إلهي وأذل وصل دريبان هاي وحنا كل شيء يعنيه بأن الله أحبك كما أحببته إنه إلهي كتشعل هذي سيداد نكن بعض أتشعشها يسقى درتي بأن الله أحبك كما أحببته فيه بكوير. إذن إخوتي في الله حديث كاس بشارة عظيمة أقول هانو مرينها يعني بشارة لو بشاريي بشارة كقيمة بضن إن أنا مارتي في الدنيا والآخرة الواركين اللهم هذا ضدك أهل الجنة مارتي ماركي تغان إلهي أركتديسة مارتي إلهي ومارتي وصينها يوتصها يمويان نكاس بشارة لو بشاري إخوتي في الله حديث كان قصة وحبارسية هي وقصة ذو قيمة بضن ويان وحين عضينا منزلة
dadka ilaahay dartii isu jeclaada ragna khaas kuma ah rag iyo dumarba waa isku mid weey ilaahay dartii gabadhan hadii gabadhan kale ilaahay dartii iyo diin ay u jeclaato ninkan haduu ninkan kale ilaahay dartii iyo diin u jeclaado waa isku wada mid weey idan almutahaabuna fillahi ilaahay dartii kuwa isu jeclaada manziladooda iyo darajada ay leeyihiin iyo arinta wanaaga ay leedahay ziyaaraadka la ziyaaranhayo oo walaalkaada ninkaas qisadan uu xadiidku noo xumbaarsan yahay wuxuu noo sheegayaa ziyaarada ninka uu soo qumay oo soo ziyaartay inayna wax walaaltinimo kale oo nasab iyo wixii la midka iyo masaalix ayna ka dhaxaynin ee diin ay ilaahay dartii jacayl uu jecel yahay uu ziyaaranay minuna ba imaam an-nawawi rahmatullahi alayhi qeyrkii waxay leeyihiin xadiidkan waxaa laga faa'iideysan awalan darajada ilaahay dartii dadka isku jeclaada darajaadka ay leeyihiin iyo qiimahooda waa laga faa'iideysanayaa waxa kale oo laga faa'iideysanayaa sifatul mahabba inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala sifatul mahabba sifa min sifati illaahi subhanahu wa ta'ala ayta inuu ilaahay wax jeclaanayo wa nabiga maartay rasuulkan ama malagan waa kale ilaahay baa ku jeclaaday sida asagaba alla dartii aad u jeclaatay idan sifa min sifati illaahi inay tahay oo taliiqu bi jalaalihi wa 'azamati unumaysa marka waxa kale oo laga qaadan bay dhahan dadka fiican ee khayrka lagu tuhmaayo in la booqan karo oo la soo ziyaaran karana waa laga qaadan karaa imaam nawawi rahmatullahi alayhi iyo culimo kalaba idan ikhwati fillahi xadiidka wuxuu noo faa'iideynayaa booqashada iyo isxidhiidhinta iyo is-ogaanshada ilaahay dartii iyo diin la isku jeclaaday darteed la isku xidhiidhinayo inay manzilo sare lagu gaadhayo waa nabiga calayhi salaatu wasalaam nusuus kale ka sugnaatay qiyaamada ba Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ayna almutahabbuna fiya away amartay kuwa aan dartay isu jeclaaday yaani maanta waxaan maartay hadhaynayaa hooskayga oon hoos kala jiro hooskaygan hadhaynayaa ayuu Allah subhanahu wa ta'ala nabigeena calayhi salaam xadiis qusiga ku sheegaya xadiiskii kale xadiisu sab'atu yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu asna waxa ku jiray warajulani tahabba fillahi wajtama'a alayhi wa tafarraqa aw kama qala alayhi salatu wassalam todobada ilaahay arshigiisa hooskiisa hadhaynayo waxa kamida laba nin oo ilaahay dartiisu jeclaaday sidaana ku wada kulmay sidaana ku kala tagay ilaahay dartii bay isu jeclaadeen idan ikhwati fillahi xadiidkan ahadiitaas oo fara badan baa xooj maartay macnihiisa isku mid noqon hayaan idan manzilada uu leeyahay qof labada qof ama dadka ilaahay dartii isu jeclaada ilaahay dartii isu booqda ilaahay dartii isu xidhiidhiya ilaahay dartii u wada socda oo masaalix adduunyo iyo nasab iyo hebel iyo wax kale aan lahayn manzilada ilaahay u ballan qaaday iyo qiimaha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gaarsiiyay ba xadiidkan iyo qeyrkii qisadan ay noo soo khulaasaynaysaa bal ninka fiiriya amalka uu la yimid markaad fiirisay qiimahan yaani bidaantiisa inaga xageena ma weyno laakiin inda Allahi azim wey inaad tad gurigaada ka soo baxday guri kale aad tagtay ama xaafad kale aad qof ku booqatay ama magaalada joogtay intaad ka tagtay magaalo kale ama ku dhawaatay ama ka fogaatay aad qof u kacdi oo ilaahay dartii aad u jeceshaad ku soo booqatay waxa laga yaabaa maartay inaga nadaradeena iyo xageena markii laga fiiriyo inay weynayn laakiin inda Allahi waa azim wey inda Allahi waa azim wey ina azim taayna waxa ku daliila malag baa ninka loo soo diray waa malag khaas ah oo wadiifo kala qabanaynin baa ninka dartii loo soo diray amalka ilaahay si uu jecel yahay iyo agtiisa qiimaha uu ka leeyahay baa malag loo soo diray malagii ayaa ninkii dhaxda u fadhiistay kadibna su'aalahan buu weydiiyay xageed u socotaa tuula fulaan maxaad ka rabtaa nin aan saaxiibanahay ama walaalkay oo maartay aanu ilaahay dartii aan u jecelahay baan u socdaa ma abaal buu kugu leeyahay ma shaqo ku hayaa maxaad ka doonaysaa maya abaal la iguma le shaqana iima hayo ilaahay dartii aan u jecelahay darteed baan u booqanayaa markaasuu yiri anigu waxaan ahay rasuul ilaahay soo diray adiga ii ka soo diray waxaana ku sheegay inuu ilaahay ku jeclaaday saada asagaba aad u jeceshay alla dartii aad u jeclaatay baadigana ilaahay ku jeclaaday bishaara cadiima weeyaan ikhwati fillah bishaara aad iyo aad cadiim waa weey marka walaalaha muslimiinta waxaan leeyahay maartay ina ilaahay dartii la soo xidhiidhiyo oo qofkan aad jeclaanays macnaheedu ma hada dadkii nasabka iyo dhalashada aad wadaagteen lagu leeyahay go qofku hadduu isku darsado dhalashadii iyo diin uu isku darsado saa ku jeclaati waa qiimo badan weey idan inaad qofka ku jeclaati miisaan aad ka dhigati soo dhaweynta iyo fogeynta iyo wixii la midka ama qofka soo dhaweysanayso jeclaanays miisaankaadu inuu ahdo ilaahay darti
diin uu qofkan leeyahay cibaado ka muuqata uu leeyahay daaca uu leeyahay khayr uu leeyahay wanaag aad ku tuhmaysid darteed inaad u jeclaatid ood ku booqatid kuna xidhiidhisi sidaana marka aad ku jeclaatid waa darajo cadiima weeyaan aad iyo aad bay arrintaa u fiican tahay laakiin maca lasafi shadiid maanta aad buu yartay waxyaabaha masaalixda adduunka aad baa laysugu xidhiidhiyaa aad iyo aad bay dadku marka oga warhayaan aad iyo aad bay dadku markaa arrintaa u jecel yihin maalin ninkii shilinku siiyo weligaa ma iloobaysi maaragtay wixii hawl adduunya ku saabsan laakiin markay noqoto masale diini iyo daaco iyo khayr iyo wanaag iyo maaragtay ilaahay dartii aad bay u yartahay aad iyo aad bay u yartahay waa waxyaabaha aanu ku kala duwannahay salafkeenni saalixa ah salafkeenni hore ilaahay dartii bay isku jeclaan jireen yuu yahay ninkan midabkiisa muxuu yahay waxaa shaqadooda ma ahayn ilaahay dartii sidaasayna darajada sare ay ku gaadheen marka ikhwati fillah arrintan waa arrin aad iyo aad muhiim u waxaa kaloo maaragtay qisadan laga qaadan bay dheheen malaa'igtu malagga uu ninkaa arkay suuro bini aadam inuu lahaa maxaa yeelay asaga iyo kayrkii jibriilba nabi maxamed wuu arkay iyo maaragtay saxaabada rag ka mid abana way arkeen suuro bini aadam bay ugu yimaadeen maxaa yeelay suuradda sawirkiisa malagnimadka bini aadamku ma xajin kara araggiisu qofun ilaahay subxaanahu wa tacaala awood siiyey mooyaane saa darteed malaggan suuro bini aadam buu ugu yimid nabiga calayhi salaam iyo ninkaa ugu yimid oo meesha uu maaragtay jidka uu istaagay nabi maxamedna jibriil wuxuu ugu yimid asagoo suuro bashar leh sida khaasatan weliba dixyatalkelbi ninkii la dhihi jiray ayuu aad ugu ekaa waadna garanaysaan xadiidkii cumar binu khadaab uu maaragtay ahaa maraatib aliimaan maaragtay markii laga hadlayey uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u yimid cumar binu khadaab uu sifaynay nin noocaasoo nooca marya cadcad oo safar aahaartii ka muuqanay wixii lamidka dadkao dhan wada arkaayeen markii dambana markuu ka tegay nabigu yidhi jibriil baa diintiina idan barahaya idan malaa'igtu suuro bini aadam inay isku tashkiilin karaanoo nooc bini aadamka sawirkiisa oo qof bini aadam ayagoo ah ay maaragtay la arkahayo ayaa laga qaadanaya waxaan ku soo gebagabaynayaa warkayga oo qisadan ay noo xumbaarsan tahay mansiladaas ilaahay dartii laisku jeclaado ilaahay dartii laisku xidhiidhiyo ilaahay dartii laisku soo booqdo ilaahay dartii laiskaga warqabo inay mansilo cadiima ilaahay agtiisa ay tahay idan qof kastow arrintaa ku dadaal camalka laga aqbali doono war ooma hays ninkaa wixii acmaal uu sameeyey ee kaloo dhan waxaa oga khayr badan intaas uu la yimi oo walaalkaa qaryadaa kale iyo tuuladaa kala deganaya ilaahay dartii u booqanayay baa ilaahay ka aqbalay malag buu ilaahay u soo diray waxaa loogu bishaareeyey inuu ilaahay jecel yahay sidaa asagaba ninkaa ilahay dartii u jeclaaday warkayga waxaan kusoo gebagabayn ilaahay subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i ilxusna wa sifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa ilaahay dartii isu jeclaada kuwa ilaahay dartii isu xidhiidhiya kuwa ilaahay dartii isu booqda kuwa ilaahay dartii maaragtay iskaga warhaya sidaasaan kusoo gebagabaynhayaa ilaahayna subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasma'i ilxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tuso nuguna irsaaqa xaqa raacitaankiisa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu